Somaliland ayaa ka qayb geli doonta tartanka orodka ah oo maalinta berri oo Jimcaha ka qabsoomi doona waddanka Djibouti, gaar ahaan caasimadda Djibouti haddii alla idhaahdo. 12 dal ee ka qayb geli doona tartankaasi orodka ah ayaa Somaliland ka mid noqotay 12kaasi dal ee berri ka qayb geli doona tartankaasi orodka. Tartanka orodka ah ee berri ka furmi doona waddanka Djibouti ayaa Somaliland waxa uu ka qayb geli doona 2 orodyahan oo kala ordi doona 3,000 kiiloomitir iyo 10,000 kiiloomitir. waxaana wafdiga Somaliland horkacaya gudoomiyaha Olombikada Somaliland Mustafa Cabdiraxmaan Xaddi waa diyaare Maxamed Xasan Nageeye gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Somaliland, waxaana labada gudoomiye ku weeliya orodyahanada u ordaya Somaliland. Maxamed Xasan Nageeye oo malcab uga warbixinaya orodka Somaliland ka qayb galayso maalinta berri oo Jimco ah ayaa waxa uu yiri: waxaan ku suganahay dalka Djibouti oo mutaakanahay runtii halkaasi lagu soo casuumay tartanka meetingka oo runtii sanadkiiba hal mar bisha saddexaad la qabto. waa markii shanaad ee xiriirka ciyaaraha si joogto ah uga soo qayb galayo tartankan meetingka. tartankan runtii waxaa waftigan hogaaminayay gudoomiyaha Olombikada qaranka Somaliland Mustafa Cabdiraxmaan Xaddi, waxaana la socday laba atleet ciyaartoy Mustafa Cabdilqaadir iyo orodka 10 kiiloomitir gadheed oo maalinta Jimcaha insha Allah berito, iyo sidoo kale Axmed Saciid oo ordaya orodka 3,000 ama 3 kiiloomitir oo runtii isaguna dhici doona isla berito oo galika dambe ka dhacaya garoonka Xasan Guuled Abdidoon ee dalka Djibouti. waxaan rajaynaynaa guul, inkastoo dhalinyarada mar walba u baahan tahay tacab in la geliyo oo sanad ama 2 sano ka hor meel lagu sii hayo oo xereeyo. Hadana waan dadaalaynaa insha Allah biilinahay karimka xiriir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba. waan ka mahad celinaynaa malcab sida wanaagsan nala soo xidhaan walba. 12 dal ee ka qayb geli doona tartankaasi orodka ah ayaa kala ah Suudaan, Baxrayn, Koonfurta Suudaan, Djibouti, Kenya, Itoobiya, Qatar, Rwanda, Soomaaliya, Uganda, Koonfurta Afrika iyo Somaliland.